عليكم ورحمة الله وبركاته. قياري وان سلامي ملكستو ادونك كجوجتان ما شاء الله. ما انت محان جوجنا مينيابلس ما شاء الله. سفر كي وقدم بيواي هدو إلها ادمي بريطانيا كسي تغايا ان ما شاء الله مقالة ومقالة ادو وناكسن داد كيد ادو وناكسيهن سفيعان لإيقو سودويي ليكا هون ما شاء الله. لكتان اركيسي مالك ادو قروح بدن ما شاء الله. أنا أصحابتي لو مر أيان إماضي مروحة كياني ولالكي عاقل أو ما سنتهاي سيدا شرفت لي مقالة أيقو سوري جسي مالك عيادة هادنا ويلا بواس لسوعنا ما شاء الله. سيدا أركيسين مقالة ما شاء الله ومقالة ادو قروح بدن داد كيدنا أي ادو قروح بدنيهين سومالي بدن أي كونو ليهين نسراهان أنا ادو أوغي لي ما شاء الله. إن شاء الله تاريخ لا يحسو دونتو سو نقد كدنبي إن شاء الله وحين نقوم دونتا meel Soomaalida ay hoy u tahay oo aad iyo aad ay dadku soo dhaweynayaan. Dhammaan intii ugu soo dhaweysay aad ay u mahadsan yihiin. Familkeyga, asxaabteyda, asxaabta Nasr Som, YouTube-ka, Snapchat-ka igala socdaan iyo inta aan isku baranay social media-ha. Ma sha Allah Soomaali meel kasta ay joogaan guul ayaa u rajeynayaa. Inta badan meeshaan hadda aan joogo waa lagu ordaa exercise ayaa lagu sameeyaa. Waxay leedahay leg dheer oo qofkii doonayo inuu iscaateeyo rabo isku caateyn karo. Ma sha Allah dad badan ayaa galbihi iskugu yimaadaan. Dadka maxay ka yimaadaan shaqo markay shaqada ka yimaadaan ayay waxay jecel yihiin inay halkaas exercise ku sameeyaan ama ay ku socdaan. Meeshan waa meel aad u qurux badan indhaha u fiican. qofkii waqti haayo oo waqtigiisa wax uga soo hareen ma shaqo ka imaaday ama maalmaha fasaxa ah asagii ciyaalkiisa halkaan ayay u soo dalxiistay karaan ama waqti ku qaadan karaan ama ay exercise ku sameyn karaan. waa meel aan aad uga helay dada xataa intay imaadaan kalluun ka dabtaan. marka ma sha Allah dartaan meesha gudaha ayaa u sii socdaa. hadaa meel kor ayaa ka arkayseen marka siday u egtahay qaabkay u egtahay waxa dhan arki doonaa. dadka inta badan xataa qaaraas magaalooyinka looga imaado inay sawir ku galaan inay waqti kula qaataan familkooda. ma sha Allah ما شاء الله meeshan waa meel aad u qurux badan ani aad uga helay dhowr marna aan imaaday. marka waxaas dhigi karaa asxaab badan waxay dhaheen Nasro video blog ka soo samee Minnesota hadaad tagtid. insha Allah video blog badan ayaa sameyn doona magaalooyinka aad tagay meelaha aad tagay meelaha ka shopping gareysto dukaamada aad ka soo adeegto. markasta waa jeclahay in dadkayga aan la share gareeyo wax wanaagsan. marmarka qaarna anoo jikadeeda joogo dukaamada aad jikadeeda uga soo adeegto way fiican tahay in dadka waxyaabaha quruxda badan aad la share gareysid. sida hadda arkaysid meesha quruxdeeda aad ay waam u tahay maanta hawada qabow iyo meesha hawadiyo macaan roob ayaa soo duuiro cirka dhinaca mugdi ah. waa arkaysid meeshan aad u qurux badan tahay. dada sawir iskaga qaadayo dada ciyaalkooda meesha keenan si ay waqti ugu la qaataan. marka sida la ii sheegay Minnesota waa meelaha ugu lagta badan magaalada hadda joogo way lag badan tahay. inta badan dadka samarka barbecue ay sameystaan banaanka ay u soo baxaan cuntooyin ayaa la cunaa. dadka waqti wada qaataan familada way isku imaadaan saaxiibayaasha way isku imaadaan. dhammaan intii igu soo dhaweysay ma sha Allah leg horay oo aan tagay walaashay iyo xaafad wixii degantaa leg u dhow subaxii waxa sameyn jiray intaan baxno anagoo badan ayaan lagta ku soo ordi jirnay 8 in the morning ka bixi jirnay. inta badan waxa soo gelin jiray Snapchat-kayga waxaan ku soo noqon jirnay 10 markaas waxa iga dhacda almost 11 pound. marka ma sha Allah Minnesota hada ku nooshahay samarka opportunity badan ayaa oo laga faa'iideysan karo. marka magaalo aad u qurux badan waa aan ka helay dadkeeda aan uga helay Soomaali badan ay ku nooshahay waa magaalooyinka Soomaalida aad ka ugu badan yihiin. marka sida arkaysiin waa magaalo aan aad uga helay. insha Allah mustaqbalkana aan mar kale dib ugu soo noqon doono haduu Ilaahay yiraahdo. marka arkaysiin dadka dhan way isku yimaadeen waqti qaadanayaan sawirro ay ka qaadanayaan videoyaal ay ka duwanayaan biyaha indhaha ay u fiican yihiin. green way Minnesota waxay caan ku tahay waa magaalo green badan waa magaalo leg badan waa magaalo ma sha Allah hawadeeda iska fiican tahay laakiin waxay dhahaan inta badan winterka markuu imaado waa magaalo aad baraf u badan intaan barafka la gaarayaan ka fakanaya. laakiin insha Allah marka la imaan doono ayadoo baraf u jiro. marka ani hadda waa jeclahay ma sha Allah hawada inaan waxba iga heesaa meesha cabaar inta iska fadhiisto hawa iska qaato ma sha Allah. wallahi imaashayga Minnesota mustaqbalka buuga qori doona ayaa ku soo qaadan doona.
maxaa yeelay waa magaalo si aan naba caadi ahayn la igu soo dhaweeyay aan aad uga helay dadkeeda aad iyo aad ay ii soo dhaweeyeen lagu casuumay xaflad la ii sameeyay jecel badan la i tusay dad badan aan is aqoonin dad hawada wax badan fareen ku ahayn dad 2013 markaan Facebook cuntada soo gelin jirnaa hawada iska baranay ii soo dhaweeyeen walaaltinimo jecel ku jiro marka waxaan is dhihi karaa social media waxyaabo badan ayaa ka dhaxashay marka ilaahay waxaan ka baryayaa inta igu soo dhaweysay Minnesota ilaahay inuu ajar badan ka siiyo xasanaad badan ilaahay ka siiyo adduunkana waxa waaye مور وناج أسميستيد مور أدينا ضد وناج كوسمي أهليسد ضد أنت بدنا وحاكل الطليا إن نقدان ضد قلبي وناكسن فرحت وناكسن ضد كلا وناج ورجيا قلبي يود يسكو في عينهن فرحت استوسان قف كلا ومركو عاوتان وباهي هاي عاويو ما شاء الله تسأل كيسين أنا قاعدة يا وهستهود من الصورة ما شاء الله مسلم قال ما شو اسكو ماذا سأركيسين marka waxa sidii kara dadka Minnesota waxa la soo malxitray wanaag asamaysid moor wax ku gudo ayaa helaysa muhiim ma ahan dadka Minnesota ugu soo dhaweeyeen inaan hadeertan wanaagooda u gudo laakiin insha Allah dad badan oo magaalooyinka aad joogo imaadaan ayaan anigana sidoo kale ugu soo dhaweyn doona inta badan marka magaalo aan joogo kala qof Soomaali imaado waxa jecelahay inaan soo dhaweeyo inaan cunto u kariyo inaan ما شاء الله قلبي وناكسن عطوسي إلهي نمركا من صورة تجي ضد بدن أي وسولة وين ضد بدن أي حفلة دي سمية يعزومين عنتا اللي يعزومين ضد كاس وحاكم إذا ولا لك جمال كوكين سكوريس أو سي وناكسن يقصوا ويا ولا الله قبلها صوماليات ومش حفلة يقو قبتين ولا شيء فاطمة يؤذي كذا ولا شيء أيان عداوة يقول كهورت هاي محمد ما شاء الله محس كرا ولا شيء إذل ولا لك يوسف familkayga qaraabadeyda familkayga Soomaaliyeed ما شاء الله هذه وسoo dhaweeyeen moolasha Soomaalida marka tahay qof kasta wuxuu dhahayaa nasrisom taas ayaa igu kaliftay inaan insha Allah mustaqbalka documentary ay ka sameyn doona Minnesota iyo maashayga maxaa yeelay iyada Ilaahay naxariista wuxuu dhigi jirtay wanaag badan waa lagu sameeynaa laakiin Ilaahay naga dhigo dadkii wanaag loo sameeyay kuwii u guda dadka kale marka ma sha Allah حاسدي كرام من صورة مجال وناكسن أد وناكسن تاريخنا حسد وانت فرحت دي سيدا وأركتين أيام فرح سنة هاي ما شاء الله يعني ماشان مرو ماشان قالوا حاركة يقف صومالي يجهر ما نايو يعني سيدا وأنا دي مجال كيما دالس مجال صومالي بدن مئهن لكن ما شاء الله من صورة مكاتب صومالي لما دريميسا وحاب دريميسا أنا صومالي جوكت مجال دي أكيد ما ذاك اسمه عدي ina joogo malaya because moolka Soomaaliya marka tago kala sidaas ayaa la isku dhaxmaraya meel dadkaaga ay ku badan yihiin wax ka fiican ma lahan hadana meel dadkaaga ay ku tusayaan sharaf ku leedahay community-gaaga sida arkaysan Snapchat ayaa iska duubaya ma sha Allah dadkayga Snapchat-ka ayaan rabaa inaan dhinac ka qanciyo dhinacan YouTube ayaan ka duubaya ma sha Allah inta badan asxaabteyda ama dadkayga waxay dhahaan nasro video blogs ka soo samee please meelaha amaraysid dukaamada tagtid noo soo duub dadkana marka wax wanaagsan markasta la share gareynaysid wax wanaagsan oo soo bandhigaysid waxyaabaha quruxda badan ama waxyaabo kasta oo soo bandhigtid dadka way jeclaanayaan Snapchat-kayga hadaan maalin yar ka maqnaado asxaabtana waxay raayaan nasra ma xanuunsan tahay maxaa kugu dhacay sida arkaysiin Snapchat ayaa isku duubaya heer waxa gaaray marka Minnesota joogay anigoo oo lecture joogo oo maxay heedo video yaal sameynayo ayaa gabdho igu arkeen dhaheen baa nasri kora ka aragnay video adoo duubeysid Snapchat-kaagan hadda kala soconay meesha igu maadeen igu soo booqdeen igu salaameen marka qof kasta maxaa leeyahay marka wax bulshadaada ala jeceshahay wanaag Ilaahay wuxuu ku soo dirayaa bulsho badan oo ku jecel taasna waa xaqiiq qalbi wanaagsan aan istusno farxad aan istusno aan isku qalbi furnaano jecel aan istusno mora jecel qalbigaaga dadka kala tustid mor Ilaahay uu ku soo dirayo dadku jecel markastana horumarka iyo wanaaga waa qalbiga sida arkaysiin shimbraha ay ugu soo yaacay وجعلها يعني حيوان كي بني آدم كقف كستان سديكرو وناجي أما حيوان كعاوي أم وحان سديكرو تاريخ أدونك كجتك وجعله حيابها عادي ذكر وحيزوب بيديان أنت بدن نصرف وفن محاوركتا أنت بدن حنتا كرسا أنت بدن جيكا كجرتا أنت بدن وحليك مشغول سنتها لكن يعني محا جعشها يعني وحا جعلها إنا vacation هذا إنا عنتكريو إنا ميل شرحه
inaa wax qoro, inaa recipe aan la sameeyo, cuntooyinka inaa alifo, sidaan oo kale xayawaanaadka oo kale inaa waxyaabo iskaga tuuro ama iskagala ciyaaro. marka muhiim waxaa ah intaad qof kale ku mashquuli lahayd ama waxaan dantaada ahayn aa geli lahayd, waxaa markasta fiican inaad isku mashquushid wax dantaada aa ka hadishid, dadkaaga wanaag aa la sheergaraysid, horumar dadka aa u rajaysid, dadka kale oo u baahan inaa caawin u baahan inaa caawisid, dadka kale wanaag aa u rajaysid, dadka kale horumar aa u rajaysid, qalbi nadiif, timeka kuusoo horo kale meelahan oo kale aa iska imaatid, waqti la qaadatid. waxyaabaha hadda video aa sameynayo aan videogeyga iska samaysto, haddii hawa aa qaadanayo hawa aa qaato, haddii aan gym aada gymkeyga aado, haddii galabihii oo kale winter ay ahayn qabow uu jirin banaanka aa kusoo socdo. more maxaan dadka kula taliyaa snapchatkeygana inta badan dadka iga barteen inaan dhaho wax kasto waqtigaaga kuusoo haray ka faa'iideyso, ha ku dhuminin waqtigaaga waxaan dantaada ahayn, xan isku mashquul, dadka kale hiblaayo maxay tiri, hebel muxuu dhahay, tartan isku kalsoono, more aa isku kalsoonaatid more aa horumar gaaraysid. haddaa isku kalsoon tahay wax kaa halaaway ma lahan, wax kasta aa sameynayso waxay ku noqonayaan easy. laakiin hadday kugu jirto ama laga horumaraa ama maxay aheedo waxaan amaysaa noqon waayaan, wax faa'iido kuuma lahan. marka insha Allah waxaa qof kasta kula talinayaa inuu noloshiisa waqti geliyo, horumarkiisa uu ka shaqeeyo, farxadiisa uu ku shaqeeyo, maxay aheedo dadkiisa kale uu caabiyo. haddii aad markasta wanaaga aa ka talisid oo horumarkana aa ka talisid, ilaahay ayaa kugula garab galaayo. adduunkana dee qofka markuu rabo inuu wax sameeyo waxaa arkaysaa dadkaa soo horjeesto, dadka kaa soo horjeestana dhag jalaqaa u siinin, maanta maalin ahayn dadka kugu mashquulsanaa ama dadka wax kaa sheegaya ama dadka horumarkaaga aan jecleen ayagoo waxaa arkaysaa kaa daba orda. marka only muhiim waxay tahay inaad waqti gelisid waxyaabaha aas dhigi kartid, horumar ayaa ka sameyn kartaa, farxad ayaa ka sameyn kartaa, mustaqbal wanaagsan ayaad ka keeni kartaa. insha Allah inta badan waxaan jeclahay barnaamijkeyga nolosha waxyaabahaas oo kale waxyaabo badan aan kaga soo hadlo. maasha Allah safarkeyga wuxuu ahaa safar aad u qurux badan, safar aad u wanaagsan, farxad badan leh, horumar badan leh, dadkeyga isoo dhaweeyeen. marka insha Allah Minnesota waxay noqon doontaa meel aan wax badan aan usoo xiisi doono. maasha Allah hadday ahaan lahayd cunto in la isiiyo, hadday ahaan lahayd in magaalo la geeyo, haddaa moolka tago qaxwo haddaa rabo nasri somaataha wax kasta la ii sameeyo. maasha Allah maxaa marka qof kasta u rajeynayaa in markasta wax wanaagsan uu sameeyo, qalbigiisa nadiif uu ka dhigo, jecel dadka tusisid. mar waxaa laga yaabaa dad aa wanaag u sameynaysid inay ku arkaan inaad doqon tahay, laakiin try your best inaad dadka aad ilaahay dartiisa aa u caawin kartid. aan noqono dad isku duuban, aan noqono midka kale ha caawiyo. haddaa aragtid qof walaalka oo rabo inuu wax sameeyo, dhiirigeli, haddaa la sameyn kartid la samee. maxaa yeelay maanta ma ogid in maanta adi waxaa u maleynaya inaadan dadna u baahnayn, laakiin maalin waxaa jirta dad aa u baahanta dad ku caawiya aa helaysid. marka is caawino, is dhiirigelino, horumarkaan iskala talino. hadeertaan magaalada meesha hadda aan joogno Lekalahoon waa kasii tegeynaa moolka u soconaa Carmel. maasha Allah waxaan jooga almost 13 daqiiqo meesha, almost 15 minutes meesha waa ku jiray. meel maxay ahayd waqtigaaga inta kuusoo harto waxaa fiican 5 daqiiqo baa Allah ka dhigee meel naftaada ay ku qanacsan tahay, happy aa ku dareemaysid, dambi kaa soo gaaraynin, xan kaa soo gaaraynin, wax qaldan kaa soo raacaynin. at least waqtigaaga inaad ku lumisid. muhiim aha inaad telefoon ku hadashid dadka ku mashquulsan ama dad aa wax ka sheegtid, laakiin waxaa ogaanaysaa more waqtigaaga haddaa ku lumisid waxaan dantaada ahayn, ogow adina in lagugu mashquulaayo, waqti lagu gelinayo, wax lagaa sheegayo. laakiin stress free haddaa tahay oo dadna ku mashquulin dadna wax ka sheegin, noloshaada horumar ayaa gaaraysaa. marka asxaabey sida arkaysiin hadda meesha waa kasii tegeynaa. alxamdulillah maanta maalinkeyga waxay ku dhamaatay maalin aad u qurux badan, xasuus mudan. insha Allah marka videogan aan insha Allah soo geliyo YouTube-kana aad uga heli doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. haddaan ugu cusub tahay subscribe YouTube-keena si aad markasta waxyaabaha aan soo gelino aad inagula socotid. Snapchat-keena nagala socdo, waa arkaysiin asxaabta Snapchat aad ayay message igu soo dirayaan sida arkaysiin. maasha Allah dadkayga jecel aad u tiro badan ayay i tusiyaan. maasha Allah waxa aad aan ugu faraxsanahay. muhiimada ayaa waxay tahay adduunkan waxaan idinkala talinayaa qof kasta oo rabo inuu wax sameeyo, qofkii ku jecelna jeclow, qofkii ku necebna jeclow. haddii qof maanta uu ku amaano, hadduu maanta qof ku amaano waxba kuma sheegayso, thank you unbaa muhiim ah. haddii qof maanta uu ku neceb yahay oo wax kaa sheegana thank you ayaa muhiim ah. adiga haddaa aad tahay
xasan ama xasna ama xaliimo ama nasro waxaa tahay unbaa tahay, waxaada ahayn qofna kaama dhigaayo. marka waxaan idin rajeynayaa asxaabay inaa insha allah nala socotaan. haddana waxaa usii socdaa Carmel, maanta maalinkii igu dambeysay waa Minnesota. maasha allah Minnesota aada ugu soo xiisi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo insha allah. dhammaan daawadayaashayda asxaabta markasta igu xiran fiidiyoyaashayda daawadaan, dhammaan inta hawada iga taqaano asxaabteyda adduunka kuwada nool, aada u mahadsantihiin sida sharafta leh sida quruxda badan aa markasta ii daawatiin. insha allah barnaamijyo badan ayaan soo wadaa asxaabteyda snapchat-kana dhinaca kale ayaan barnaamijka aan ogala wadaa. marka asxaabay markasta waxaan jeclahay fiidiyoyaal idin qanciyo waxyaabo waxtar u leh bulshadeeda aas dhihi karo. marka waxaan share garee familkaaga asxaabtaada inta aad istaqaaniin si wax badan ay uga faa'iideystaan. Nasri Som page-ka Facebook igala socda, waxyaabo cusub ayaa soo geliya aas dhihi karo bulshadeeda wax badan ayay tarayaan. Facebook-gayga follow garee si markasta ay ugu xirnaatid. Snapchat-ka igala socda, haddii aad subscribe gareysid YouTube-keena email ayaa kuusoo dhacaya waxyaabaha cusub ee aan soo geliyo. marka akhyaaray waa inoo muhiim codsigiina commentiga hoos kusoo qora waxyaabaha aad u aragtaan, waxyaabaha wanaagsan waxyaabaha aad ka heshid si aan codsigiina u oofiyo. maxaa yeelay markasta waxa ay xukumaan dadka inta badan ay daawada. marka insha allah waxaa idinkaga tagayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. balanteena waa Nasri Som.